sirdoonka Turkiga ayaa si xirfad sare leh u kala furfuray shabakad basaasnimo oo si qarsoodi ah uga howlgalaysay bartamaha magaalada Istanbul tallaabadaas oo soo afjartay dagaal qabow oo muddo socday balse aan shaacsanayn. howlgalkani waxa uu daaha ka qaaday qaab cusub oo basaasnimo casri ah waa in xogta lagu kala iibsado lacag digital ah sirna lagu gudbiyo barnaamijyo isgaarsiineed oo qarsoon. haddaba sidee ayaa loo jabiyay dhagarta ay hay'adda Mossad maaganayd maxay yihiin xeeladaha la adeegsaday waayo aragnimada xuuraanka iyo xirfadaha su'aalahaas iyo kuwa kale ayaan ku lafaguraynaa tabinteennan Tifaftir Media soo dhawaada. magaalooyinka waaweyn ayaa casriga maanta ah waxay isu bedeleen furimo dagaal oo dahsoon laga bilaabo Tel Aviv ilaa Istanbul, Ankara ilaa Gaza. dagaaladu mar dambe ma aha kuwa ciidamo dhex maraya laakiin waa kuwa maskax, tiknoolajiyad iyo xog ku salaysan. dad badan oo u haysta inay ka baxsan yihiin colaadaasi ayaa dhab ahaantii bartankeeda ku jira. Mitron ma ahayn magac howlgal oo kaliya balse waxa uu ahaa digniin muujinaysa bilowga waa cusub oo basaasnimo caalami ah kaas oo ku bariyay dagaal Turki iyo Israa'iil u dhaxeeya laakiin aan rasaas lahayn. Istanbul oo ah magaalo aan laga seexan waxay u muuqatay mid caadi ah, ammaan ah oo mashquul ah. hase yeeshee hoosteeda dagaal qarsoon ayaa ka socday, dagaal aan xabado la ridaynin balse sir lagu beerayo. bartamaha magaalada nin lagu magacaabo Serkan oo ah baare gaar ah ayaa noqday xudunta sheekadan. Serkan wuxuu ahaa muwaadin Turki ah oo caadi ah, bixiyana adeegyo kormeer iyo baaris. maalin ayuu helay dalab soo jiidasho leh, waa shaqo 4 maalmood soconaysa, joornaatigeeduna yahay $4,000 laguna bixinayo lacag digital ah. shaqadu waxay u muuqatay mid fudud waayo waxaad la soconaysaa dhaqdhaqaaqa qof ku nool deegaanka Basaksehir. waxaad diiwaan gelinaysaa dhaqdhaqaaqiisa iyo kaliya cidda uu la kulmayo. isagoo aan si dhugmo leh uga baaraan degin dalabka isna weydiin su'aalo ayuu Serkan aqbalay dalabka. waxaa uma haynin in bartilmaameedku yahay xubin Falastiini ah oo Israa'iil ka soo horjeeda, isla markaana dalabka dhabta ah uu ka yimid sarkaal hay'adda Mossad ka tirsan. Tel Aviv dhinaca kale ee shaashada sarkaal sirdoon ayaa si joogto ah ula socday sawirada iyo xogta la soo dirayay. laakiin waxaysan Mossad ogeyn ayaa ahaa in isla xogtaas ay si buuxda ula socdeen sirdoonka Turkiga. laga bilaabo daqiiqadii ugu horeysay dhaqdhaqaaq kasta waa la kormeerayay, wareejino lacageed oo shaki leh, xiriiro digital ah iyo su'aalo aan caadi ahayn. arrimahan ayaa kiciyay feejignaanta hay'adaha amniga Turkiga. markii la dabagalay ilaha dhaqaalaha waxaa la helay silsilad horseeday shabakad ballaaran, qareen Turki ah, baarayaal kale iyo howlgallo la mid ah oo bilooyin si qarsoodi ah u socday. halkaas ayaa lagu bixiyay magaca howlgalka Mitron, magac laga soo qaatay shabakadda tareenada dhulka hoostiisa mara ee Istanbul. Mitron waxa uu astaan u noqday howlgal si aad ah loo qorsheeyay, degdeg ah, aamusan oo isku xiran. toddobaad gudihiisa howlgalkii Mossad ee ka dhanka ah Turkiga wuxuu isu bedelay dabin si buuxda loogu dhigay Mossad lafteeda. fariin kasta, wareejin kasta iyo tallaabo kasta waxa lagu hayay dabagal dhammaystiran. markii ciidamada amnigu u daateen guryo ku yaala Istanbul, gacmahooda kuma jirin oo kaliya dad la tuhunsan yahay balse caddayn buuxda oo muujinaysa in Israa'iil ay guuldarro ka soo gaartay howlgal sirdoon oo muhiima gudaha Turkiga ayaa la helay. magaca Mitron laftiisu wuxuu ahaa fariin, ma ahayn magac basaas ama magaalo balse wuxuu ka tarjumayay falsafada howlgalka. Mitron waa tareenada dhulka hoostiisa mara ee Istanbul, kuwaas oo magaalada u gudba gees ilaa gees iyada oo aan la dareemin. sidaas oo kale sirdoonka Turkiga ayaa si qarsoodi ah u dhaqaaqay oo ururiyay xog una gaaray bartilmaameedkooda ka hor inta uusan dareemin in sheeda lagala socdo. howlgalku ma ahayn weerar toos ah balse wuxuu ahaa ciyaar sirdoon oo si dhalan rogan ah loo dhisay. Mossad waxay u haysatay in ay dhex galayso Istanbul balse dhab ahaantii waxa ka socday marin ay Ankara si gaar ah ugu tala gashay. xog kasta oo ay heshay Mossad waxaa si ula kac ah loogu hagayay waddo khaldan si loogu diyaariyo dabinka kama dambaysta ah. tani waxay ka badnayd howlgal amni, waxay ahayd bandhig muujinaya isbeddelka Turkiga ee dheesha sirdoonka caalamiga ah. markii ugu horeysay Turkiga ma ahayn difaac balse wuxuu ahaa kan bilaabaya, hagaya, kana talinaya masraxa howlgalka bilow ilaa dhamaad. guushu kuma xirnayn tirada dadka la xiray balse waxa ay ku jirtay fariinta loo dirayay Tel Aviv. shabakad u maleynaysay inay si xor ah uga howlgali karto Turkiga waxa ay tan iyo bilowgii ku jirtay dabin Ankara ay dhistay. Mitron ma ahayn hawl sirdoon oo guul leh oo kaliya balse waxa uu ahaa fariin siyaasadeed oo cad xilli ay gobolka ka aloosan yihiin dagaallo iyo loolan xogeed.
turkigu wuxuu si cad u sheegay waddanku ma aha goob lagu tijaabinayo awoodaha sirdoon ee shisheeye sanadihii la soo dhaafay Israa'iil waxay ku tiirsanayd shabakado maxalli ah shirkado amni xafiisyo la talin iyo muwaadiniin caadi ah iyadoo og in basaasnimada maanta aysan u baahnayn baasaboorada diblomaasiyadeed balse telefoon casri ah iyo xiriir qarsoon ay kaalin libaax qaadan karaan laakiin turkiga wuxuu akhriyay shaxda ciyaarta ka hor intaysan bilaaban waxa uu arkay sida xogta loogu adeegsado dabagalka xubnaha Falastiiniyiinta iyo sida Tel Aviv isugu dayayso inay dib u dhisto saameynteeda sirdoon ee gobolka iyadoo lagu marmarsiinayo iskaashi amni iyo la dagaalanka argagixisada laakiin howlgalka Mitron ayaa jabiyay daboolkaas wuxuu ka shifay shabakad wuxuuna iftiimiyay habfakar sirdoon oo dhameystiran Ankara waxay dirtay fariin cad xilligii indhala'aanta waa dhamaaday turkigii shalay waa ka maanta leh awoodda uu ku dhicisaynayo howlgallo ka hor inta aysan bila dhamaysan caasimadaha reer galbeedka ayaa si degdeg ah u fahmay fariinta howlgalkani ma uusan saameyn Israa'iil oo kaliya balse wuxuu degnin u diray hay'ad kasta oo sirdoon shisheeye ah oo u maleynaysay inay si xor ah ugu dhex socon karto gudaha Turkiga laga bilaabo waqtigaas su'aasha ma ahayn cid la qabtay balse waxa ay noqotay imise shabakad ayaa wali ka howlgala gudaha Turkiga iyada oo aan ogeyn inay indho badan la socdaan ugu dambeyn wajiyada ayaa hoos u dhacay Bare Sarkan iyo Tukra Handib oo ah qareen ayaa noqday laba tusaale oo muujinaya sida shaqo caadi ah ay u noqon karto agab basaasnimo sheekadani ma ahayn mid ku saabsan cid guuleysatay ama guuldareysatay waxay ahayd cashar ku saabsan cidda fahamtay xeerarka ciyaarta ka hor inta aan garoonka la galin turkiguna wuxuu u muuqday inuu yahay kii ugu horeeyay ee sidaas sameeya taasina waxay ahayd dharbaxo aan kaliya ku dhicin Israa'iil ee sidoo kalena dhambaal u dirtay xulafadeeda caalamiga ah intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa warbixinteennii aan ku faaqidnay xeeladaha sirdoon ee uu turkiga ku jabiyay dhagartii Mossad waa Abubakar Maxamed oo idin leh waqtigiina ayaad ku mahadsantihiin ha mogaanina inaad ku xirnaataan Tifaftir Media intaanu dib u kulmayno nabad iyo warsan